awoodna u yeeleen la socoshada tirada gaadiidka ciidanka iyo dhammaan baahiyaha uu qabo ciidanku mudana madaxweyne ciidamadeenu kama maarmaan cudud la saaxiib ah ama la jaal ah oo ay iska kaashadaan danahooda waxa aanu kor u qaadnay xiriirka caalamiga ah ee ciidanka qaranka guulaha aanu gaarnay waxa kamid ah madaxweyne dadaalada aad nagu hogaaminayso iyo iskaashiga aynu ka helay saaxiibadeena caalamiga ah waxaanu sanadkiina soo dhaafay safarrad dibadeed ku galnay 7 dal oo ah dalalka aynu saaxiibka nahay kuwaasoo dhammaantood ay ku soo gabagaboobay safarradaasi safarrad guul ah waxaan ku rajaynahay sanadka xiga in aad ciidanka qaranka ugu timaadaan guulo iyo horumar intan ka sii badan hadii ila idmo mudana madaxweyne aqeedada ciidankeenu waa mid qarankeena ku dhismay oo ah nabad ku noolaanshaha dunida oo dhan waxaanu u taaganahay inaanu dunida barno waayo aragnimada dib u dhiska qaran iyo nabad soo celinta waxa aan si kalsooni leh kuugu damaanad qaadaya in ciidankeenu ku filan yahay ka hortag cadawgeena taagta daran ee fog dhagaxaanta ka soo tuuraya waxaanu ku kalsoonahay inaanu ku filanahay in gacmaha aan u laabno cid kasta oo khatar gelinaysa midnimadeena iyo qarannimadeena walaalaha iyaga ciidanka qaranka haween iyo ragba waxaan mar kale hortiina ka ballan qaadayaa inaan idinku hogaamin doono garasho qaangaarnimo leh daacad iyo karti dhowrista sharaftiina iyo ilaalinta xurmadiina ay tahay agteeda muqaddas waxaan idinka mahadnaqayaa kalsoonida iyo daacadnimada darjacaylka aan idinku ogahay waxaan ugu dambeyn madaxweyne maadaama oo madaxweynuhu safar u baxayo oo aynu soo gaabinayno munaasabada waxaan ugu dambeyn u mahadnaqayaa mudane madaxweyne ismayaashan casriga ah ee aynu ka fulinay taliska guud iyo dhammaan xiriyaha cid kasta oo nagala qayb qaadatay ugu horeyn cududda ciidanka kow ka ahayd waxa kale oo aan ka maarmayn shirkadaheena maxalliga ah ee hawshan muxuu ahaayay nagala fuliyay oo karti badan iyo wadaniyad muujiyay oo ka qayb qaatay inay maanta halkan muxuu ahaayay iskugu nimaadno hoolkan casriga ah iyo dhammaan muxuu ahaayay agabka ay maanta xafladan joogno kuwaas oo ay ka mid yihiin ugu horeyso shirkadda Idman Decor oo doonaya inaan halkan uga mahadnaqo oo muddo gaaban hoolkan ku hirgelisay iyadoo oo dib badan kala mudatay marka iyadana waan uga mahadnaqayaa iyo dhammaan shirkadaha kale ee qurxinta hoolkan sida Sagal Jad iyo dawladda hoose oo iyaduna madaxweyne si hagarnimo aan nooga caawisay inay laamiyada maanta aynu muxuu ahaayay marayno iyadana ay sameysay waxaan kaloo halkan uga mahadnaqayaa wasaaradda jidadka iyo gaadiidka oo iyaduna qayb laxaad la ka qaadatay dhammaantii waxaan idin rajaynayaa guul